nabad saaxiibayaal waa mar kale iyo wehelka wariyaha tababarka saxaafadda ee taxanaha inoo ahaa qaybtan oo ah qaybtii 7 waxaanu ku soo qaadanaynaa xiisaha warka maxaa ka dhigi kara warka mid muhiimad gaar ah leh warku wuxuu leeyahay astaamo iyo qodobo lagu garan karo waxayna astaamahaasi warka ka dhigaan mid leh dhageystayaal aad u badan waxa kale oo qodobadaasi dad badan ay ku khasbaan inay dhageystaan raadiyaha daawadaan telefishinka isla markaasina akhristaan wargeyska ayagoo xiiso xad dhaaf ah u haya waxaa ka mid ah qodobada warka ka dhiga mid aad u xiiso badan dhawaanshaha timeliness saamaynta impact caannimada prominence dhawaanshaha proximity isku dhacyada conflict iyo layaabka sida dhacdadu ay layaab u tahay oo ah oddity okay waxaan ku bilaabaynaa qaybta koowaad oo ah timeliness oo ah waqti dhow ama dhawaanshaha warka qodobada ugu horeeya ee qiimaha iyo xiisaha u yeela warka ama dhageystayaal badan u soo jiida waa dhawaanshaha waqtiga matalan dhacdo mar dhow dhacday wargeysyada iyo weliba goobaha kale ee warbaahinta waxay ku tartamaan sidii dadka ay ula socodsiin lahaayeen war ku saabsan xarun caafimaad oo irdaha loo furay maantadan waxa uu ka qiimo badan yahay warkaasi la mid ah oo dhacay dhowr casho ka hor warbaahintu waxay marmarka qaarkood u shaqaysaa qaab ganacsi iyadoo iibisa boosaska amase waqtiyada u bannaan gaar ahaan iidhahyada iyo ogeysiisyada suuquna wuxuu door bidaa warbaahinta warka ugu dambeeyey ee ugu dhowaa soo gudbisa dad fara badanna ay dhageystaan qodobka ugu muhiimsan ee tayaya warka waa isbeddel ma jiro caalamka wax xaalad deganaansho isaga jira warkuna waa la mid oo isbeddelka uu samaynayo ayaa keenaya in warku xiiso noqdo haddii shil dhaco ama dhacdo kale ay dhacdo 24 saac kadib sii ahaan mayso war aad u xiiso leh marmarka qaarkood waxaa dhici karta in dhacdo aysan ilaa waqti isbeddelin haddana xiisaheedu uu sii siyaado tusaale ahaan abaar waqtigeedu dheeraaday ayaa keeni karta xiiso iyo danayn gaar ah saamaynta impact haddii irdaha la isugu laabo isbitaalka degmada ee aad ku nooshahay waa war saamayn ku yeelanaya dadka deegaanka amase mid taasi la mid ah haddii isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi irdaha la isugu laabo dadka deegaanka wax saamayna kuma yeelanayso saamayntu waa dhacdo saamayn ku yeelanaysa tiro dad ah oo aad u badan waxaa saxafiyiintu si gaar ah ay u tilmaamaan marka ay qeexayaan saamaynta in ay barbar socoto muhiimadda iyo daruurinimada warka waxayna dadka u raadiyaan wararka ay isleeyihiin saamayn weyn ayay yeelan karaan warka ku saabsan shaqo joojin ay sameeyeen gaadiidka dadweynaha waxay noqonaysaa dhacdo aad u xiiso leh oo si qoto dheer looga hadlo loolana socdo maxaa yeelay waxay saamayn ku yeelanaysaa tiro dad ah oo aad u badan doorashada madaxtinimada ama midda baarlamaanka waxay ayana leeyihiin xiisooyin gaar ah dhacdo saamayn ku leh deegaan ayaa laga yaabaa inaysan deegaan kale saamayn ku lahayn haddii uu fataho matalanba webiga Jubba waxay u badan tahay in warkaasi uu saameeyo dadka gobollada jubbooyinka iyo weliba xataa gobollo dhowr ah oo ku xeeran hase ahaatee waxay u badan tahay in gobollada aadka uga fog sida awdal iyo bari aysan saamayn weyn ku yeelan amase dadka deegaanku aysan sidaasiba ula socon wargeysyada iyo warbaahinta jubbooyinka markaasi waxaa qodobada ugu horeeya u noqonaya warka ku saabsan webiga fatahay maadaama dadka deegaankaasi ay saamayn ku yeelanayso caannimada amase prominence war ku saabsan booqasho uu sameeyey madaxweynaha dalka waxa ay ka xiiso badan tahay booqasho uu sameeyey guddoomiye gobol ama degmo caannimadu marka waa war walba oo ay ku jiraan dad bulshada dhexdeeda caan ku ah qofba inta qofka kale uu ka caansan yahay ayaa warka ku saabsani uu ka xiiso badan yahay haddii wasiir iscasilo waxaa laga yaabaa inaysan xiise aad u badan yeelan marka la barbar dhigo madaxweynaha dalka ama boqorka oo iscasilay waxaa taasi la mid ah marka guddoomiye bangi lagu soo eedeeyo wax isdabamarin
wuxuu warkaasi soo jiidan karaa dhegaystayaal, akhristayaal iyo daawadayaal aada u badan. marka la barbar dhigo karaani amase shaqaale xafiiseed oo xatooyo sameeyey. shirkadaha iyo weliba ururada caanka ah waa la mid. marka shirkad caan ah ay dhaqaale la-aan u xirmato, waxay soo jiidanaysaa dhegaystayaal badan, waxayna kor u qaadaysaa qiimaha warka. dhowaanshaha proximity, cayaar final ah oo dhex maraysa laba kooxood oo ka dhisan Muqdisho, Hargeysa, Gaalkacyo ama Baydhabo ama magaalo ka mid ah dalka Soomaaliya, waxay ka xiiso badan tahay ciyaartaasi la mid ah oo ka dhacaysa Malaysia. dadkuna waxay daleynayaan midda ka dhacaysa ama deegaan ahaanba u dhow. dhacdada ama warku waxa uu dhagaystayaasha u dhowaan karaa deegaan ahaan iyo dareen ahaan. dadka waxay jecel yihiin dhacdada u dhow oo deegaankooda la xiriira inay warbaahinta kala socdaan. tusaale, dadka ku dhaqan Baydhabo waxay aad u dhageystaan raadiyaha marka uu ka hadlayo gudaha Baydhabo iyo deegaanada ku xeeran. wanaag iyo xumaanba, halka warka magaalooyinka kale aysan ahmiyad sidaas u weyn siinaynin dadka deegaanku. hase ahaatee way ka duwan tahay marka warkaasi arrimo waaweyn oo dalka guud ahaan quseeya uu ku saabsan yahay. taasi danaynteeda waa mid loo dhan yahay. tusaale, weerar dibadda ah oo dalka ku soo fool leh, musiibo dabiici ah, shil weyn oo dhacay, dhammaan waa kuwo looga dhegtaagayo dalka oo dhan. waxaa taasi la mid ah haddii doorasho jirto, gobol walba oo dalka ka mid ah isku mid ayaa loogala soconayaa arrimahaasi. haddii diyaarad ay dhacdo oo laga leeyahay dal aan dalkaaga ahayn oo uu ku dhinto qof dalkaaga u dhashay, waxay warbaahinta dalkaagu xoogga saaraysaa ka hadalka qofkaasi keliya, maadaama dadka deegaanada kale ka soo jeeda aysan markaasi aysan u dhoweyn oo dadku aysan wararka ku saabsan aada u sii xiiseynayn. waxaa dhinaca kale dhowaanshaha uu noqon karaa dhinaca dareenka. taas waxaa la mid ah marka dadku dareemaan inay ka dhaxayso isku dhowaansho xagga fikradda ah, xagga dareenka ah iyo xagga jinsiga ah. wargeyska ama raadiyaha ka howlgala deegaan ay ku badan yihiin dad isku madhab ah amase si kalaba xiriir u leh, waa ay aad ayay isku daneeyaan markaas in ay maqlaan kooxda kale warbixinada xasaasiga ah iyo warbixinada la soo cusboonaada amase kusoo kordha inay dhegaystaan. isku dhacyada marka conflict waa qayb ka mid ah qaybaha warka u yeela xiisaha gaarka. dhacdooyinka la xiriira rabshadaha dadka u dhexeeya, colaadaha iyo iska hor imaadyada kaleba waxay saameyn ku yeeshaan dadweynaha aada u badan. markaan ka hadlayna xiiso, ma ahan in mashaakilka la jecel yahay ama dhibaatada la jecel yahay inay sii socoto. hase ahaatee macnuhu waa dadku waxay jecel yihiin konfliktiyada iyo marka ay rabshaduhu dhacaan inay dhegta u taagaan. dadka waxay warbaahinta aada ugu soo dhowaadaan marka rabshadaha iyo isku dhacyadu ay jiraan. tusaale, bal fiiri idaacadda BBC da laanta afka Soomaaliga amase aan dhaho VOA amase idaacadda kale ee gobolku marka ay sheegayso war ku saabsan dagaal deegaan ka dhacay, waxaad arkaysaa in lagu xoonsan yahay idaacaddii oo aada loo dhegaysanayo. marka ay ka hadlayso war aan arrimahaasi ka baxsanna dadku aada uma xiiseeyaan. inkastoo warbaahinta lagu dhaliilay inay ku caanamaasho oo ay ka faa'iido isku dhacyada iyo rabshadaha, haddana dadka difaaca waxay ku doodaan in horumarka iyo ilbaxnimada hadda lagu jiro in lagu gaaray iska hor imaadyo iyo dhibaatooyin. haddaba xiisaha iyo hadalhaynta oo ah currency, dhacdooyinka aan ka dhammaan carabka dadweynaha isla markaasina la hadal hayo, waa kuwo xiise gaara ku fadhiya. marka qaarkood oo ay dhacdo ayaa noqon karta war cusub oo dadweynuhu ay aada ula socdaan. 1960kii madaxweynihii Mareykanka John F Kennedy mawduuc uu soo hadal qaaday oo ka hadlayay dadka faqiirka ah waxa uu keenay in warbaahintu in muddo ah ay isku hawsho sidii loo ogaan lahaa xaaladda dadkaasi. waxaana mawduucaasi dhagaha dadka uu ku reebay amase uu ku harsanaa muddo aada u dheer. qodobka ugu dambeeya ee xiisaha warka u yeela waxaa ka mid ah cajiibnimada amase oddity waxa la yidhaahdo, oo ah war aan horey u dhici jirin oo cajiib ah oo dadka ay la amakaagaan. waa dhacdo war ah oo qofka ka amakaagisa amase ka yaabisa. waxay soo jiidataa macaamiil badan. tusaale, diyaarad ku dhacday dalka Liibiya oo dhammaan rakaabka saarnaa ay dhinteen
marka laga reebo ilmo sanado jira. arrin walba oo aan hore loo arki jirin haddii ay dhacdo dadku aad bay u daneynayaan inay ogaadaan. wararka arrimaha cajiibka la xiriira waxaa ka mid ah waxyaabaha aan horey caalamka looga arki jirin oo dhaca, sida mucjisooyinka iyo weliba arrimaha dadka qudhadooda ay saameynta ku yeeshaan ama saameyntaba ku leh, sida dadka caalamka kusoo kordhiya waxaan horey u jirin amase cudur daawadiisii la helay. waa tahay waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijka wehelka wariyaha ee tababarka saxaafadda. waxaa idiin soo diyaariyey anigoo ah cabdiqaadir cabdulaahi faryaamo. qaybtii 7 intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, nabad hay.